carro hodan ay ahayd. Cagta waxaan u soo dhignay ceergaabo inaan ku ciidno dhul cagaara, iyadoo ciiddii ka harsan tahay cishooyin kooban oo aan dhammayn 2 caana maal, balse nooma cuntamin safarkii aan caagadda u soo biyeysanay oo qadar dhacay canaan male. cusubkiina waxaa noo beddelay ciidatan gaacid, xeramooli iyo goldhiigley. waa dhulka dabku carabka mariyey, dalxiiskuna camiri jiray. waqtigu waa cawaysin. ceergaabo ayaan ka safraynaa si aanu cagta u soo dhigno dhulkii cagaarka ahaa ee isu beddelay ciidda. godki tabco ayaan xilligan ku soo beeganay oo ka dusaynaa. ilaahay ha nagu nabadgeeyo. waxaan cagta soo dhignay dhulkii dabku ka cartamayay oo ciidanka xukuumadda Soomaaliland cishadii saddexaad heegan ugu jiraan siday dhulka intiisa kale uga caabin lahaayeen dabkan dabaysha fooruhu casuumayso oo aanu halka cagta kala kowsanay. wadada miyaan ka baxanaynaa halka iskaga soo darsama mar haddeer soo dhaafnay. tan waa xaqiiqada dhabta ah ay ku sugan yihiin ciidanka gaadhka haya. weli ma la qabatay ma ay maqlaysaa raadkiinana wadada waanu ka weynay. markaa xaggee baa marteen idinku? ma kanaanu marayno ubkii xaggaasiya jaabac dhoonga meydii yimaadeen watay. marka iyana waddadan miyaanay soo marin? waa gartay. صح ها هوتش dabada ayay iska soo hayaan kan abakaylaha moodi kilwa waaye. ragoo dhidaya xilliga shaqo qaran baa lagu jiraa. abaa wuxuu oran jiray rag horta caawan ciidanka Soomaaliland way xiijiyeen. soo dhow safar intee leeg baynu ilaa halka u soo soconnay? waxaan soo soconay waxaan maraynaa saacadii bar. haye welina way noo hadhay meeshaynu tigilahay. ka waran 3 habeenimo ayaynu dhididaynaa. sanaagna waa gobolka ugu qabow gobolada. waxa keenaya waxaanu saaranahay highline banu baxayna. صح taafna waynu ka nimi. صح xaqii hoose loo ka soo baxnay. taasaa keenaysa aad iyo aad baa ama santa qabowgu yuu ku gelinay. safar dheer oo aan ka soo bilaabnay buurta hoosteeda hadda waxaan soo gaarnay buurta korkeedii. waa 3 habeenimo. xilligaas ciidanku waxa ay u soo kaceen meel ka mid ah buurta daalo ee fiiqa ugu sareysa. siidhiga waxaa loo ridayaa si ciidanku ay isku meel u soo wada maraan oo aanay buurta ugu kala lumin. haddii ay 3 habeenimo kuu tahay oo dhaxani ku hayso ragga dhididka ayaa ka dhacaya. safar aan buuro ku soo cayuuqnayn iyo dhul cagaaga cidhifkii saraannimi oo dabku ka cartamayo. qisooyinka cajiib kale oo aan la kulannay ciidda iyo caleenta dhirtu ee dhulka taalla waxay kaalin weyn la ka ciyaaraysaa siduu u fidi lahaa dabku halka fooraha dhacaya uu firirka u qaabilsan yahay. taasaana keentay in ciidanku ku damiyaan caagadii biyaha hay'ada carabka ku qoynayeen.
halka isku dhex jirtaa waxa la yiraahdaa geedka la yiraahdo dhasuqda dayibka geedka la yiraahdo xayramadka waxaraguulka waa dhir inta aan sheegayna tiradeedu wayba ka sii badan tahay marka caleenteedii daafta taalay ayaa ah sidii baatroolka oo kale dabku marka uu baqsado ee ilaahay oo waqtiga mooyaane laakiinse si uu waqtigeedu uu loo u suurtagal ma ay jirto taas oo dee la helo biyo faradhaafa oo dee lagu shubo taana ma aanu hayno biyo waxa noo ah taa aan faraha ku sideenno ee aanu nahay kuwii aan cabi lahayn ayaanu marka aanu isnaano halkan daba meesha ayaanu ku saydnaa sidan ayuu waagu noogu dilaacay raggu shaqo ayuu wali ku jiraa saaxiibadeena la xalay wada guureynayna واقعي يسوق هاي بري بس شغل قرنا يان قبلنا دبك انت سبنا ريان دبني هذا وحنا صعنا قيبت سرقة دبك قصو بالعمي bal sawiro adoo rabay ceeriyaanta subaxii iyo codadka shimbiraha muuqaal cajiib leh inaad ciidda tabiso ficil burkuud dhidhi RTV